arrimaha amniga ha lagu wareejin maya ha lagu wareejiyo maya waa laga wareejinaa waxaan la wareejinay ama aan la wareejinaynin maxay tahay dastuurkaaba qeexaye waa la fiirsho qodobka 99aad xarafkiisa fa ee dastuurkan oo annaka aan ogolaanay wuxuu noo sheegayaa haddii aan faqradaas keliya aan idin akhriyo يعني waxaa weeyaan xilka golaha wasiirada xilka golaha wasiirada waxaa ka mid ah dhaqangelinta waa xarafka fa ee qodobka 99 xarafkiisa fa faqradiisa fa aan iraado dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka iyo ilaalinta danaha dawladda waxaa u xilsaaran golaha wasiirada sidoo kale faqradda ga waxay dhahaysaa xilka golaha wasiirada waxaa ka mid ah magacaabidda iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda marka waxa hadda la raadinayo wax kala ma ahe waxa weeyaan marka wayba leeyihiin nidaamkii ha lagu dhaqmo dawladda yani xukuumadda yani madaxweynahan ha u dhaqmo inuu yahay madaxweyne barlamaani ah uusan ahayn madaxweyne presidential ah oo sida ka Amerikaanka oo kale oo awoodiis ay barlamaanka la simantahay inuu dhaqmo ma aha xukuumaddana marka inay marka isdaciifisa ma aha waxa weeye xilkeeda inay qabsato si dastuurka u qorayo marka yani muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaantood waxaan u sheegayaa qodobka 42 ee dastuurka kulligooda wuxuu yani waajib uga dhigayaa inay difaacaan dastuurka inay fahmaan qodobada ku yaal ayna difaacaan dastuurka iyo shuruucda dalka meesha ka jirto marka muwaadin u soo baxa ama u soo banaan baxa ama ka hadla tidiisa difaac oo difaacayo dastuurkana waa waajib dastuuri oo asaga leeyahay saa daraadeed waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynaa yani hal laga xishoodo shacbiga laga cabsado Allah subhanahu wa ta'ala oo birta la xisaabtamayo oo kamid ahaa madaxweyne farmaajo oo kamid ahaa dadka mucaaradka ah oo u horseeday xafiiska dhowr jeer igu yimid aan toos aniga aan maamulay wax alla waxay weydiisteen waa la ogolaaday meeshan ka rar shirka waa ka ran taanada geey waa la geey kaas marna controlka hala suubi inta hala sameeyo qalmaanta laga qaado okyaalaha laga fiisho marka yani hatta geedaha marka la odayna afkooda la soo jeeday wax ay u sameeyeen oo aan la ogolaanin kuma jirto saas ay tahay waxa xasan sheekh waa laga guuleystay si nidaam leh uu xilka u wareejiyay waxaan markaa ku soo baxay meesha madaxweyne farmaajo oo markaa ayaa xilkii ku guuleystay oo markaa meesha ka soo baxay haddase